dhinaca hadda intuu hadda bilowday dagaalkan wuxuu cagacagaynayaa oo maalmihii toddobaadkii la soo dhaafay socday wuxuu cagacagaynayaa 300 ku dhawaad oo khawaarij inay ku dhimatay wasiir aad u maaqsan tahay wasiir waxa ku sugan tahay jiid hore dagaalka waxaan tahay wasiirka difaaca Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maxaa ka lafay in aad xafiiskaaga Muqdisho yahay dadka shaniga jiid hore dagaalka ay cimilada tahay xilli xagaaga aad u kacsan tahay dhulkan abaar yahay oo riski yahay inaan difaaciye ma kula qaato difaacida kula sii xad kula hooyo Soomaaliya horta waxaan wasiir difaac u ahay dal ay ku habsatay khawaarij shaqada aniga la ii dhiibayna waxa ugu muhiimsan in khawaarijta dalka laga saaro gulufkaas madaxweynaha ku baaqay uu hogaaminayana kaalintii ay wasaaradda gaashaandhigga lahayd inaan ka geysano duruufaha dalka ku sugan yahay markaad eegtana meel ka fiican meesha hadda aan joogno inaan maaragtaa cadowga kula dirarno ka fiican oo lagu shaqayn lahaa ma jirto sax waaye waxay ahayd in xafiisyada fadhino waxay ahayd in halkaas shaqada ay maaragtaa ka socoto laga hogaamiyo laakiin waqtiga iyo duruufta dalka ku jira darteed waxaan aaminsanahay in geesiyaasha ciidamada qalabka sida in lala joogo ay ka fadhi badan tahay in xafiisyada la fadhiyo waxaan aaminsanahay in cadowga loo awood dhameystirto oo hadaanan loo awood dhameystiranin uusan cadowgan dhagarta badan aanan maaragtay laga guuleysan karin furimaha aniga keligay kuma sugni madax badan ayaa furimaha ku sugan madaxweynaha qaranka kamida oo dhowr jeer furimaha yimid shaqooyin muhiima ka qabtay ciidamada kula hadlay waxa dareemaysaa ahmiyadda ay siinayso xukuumadda ra'iisul wasaaraha ayaa yimid oo furimaha dhowr mar cadow maaragtaa fariimo uga diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaankana uga mahad celiyay kulana hadlay sidaas ayay maaragtaa xukuumadda guud ahaan uga go'an tahay anigana shaqadii qof markay ka soo degto meeshaas qofkii ku soo dhacisay baan ahay in aan maaragtaa cadowga aan furimaha isla joogno oo aan halkaas ciidamada qalabka sida iyo geesiyaasha ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay arkaan in wasiirkoodii la joogo oo dawladdu cid ka dhimani aynan jirin oo furimaha la isla joogo inay arkaan cadowgana uu ogaado inaan waxba gadaal loo jirin hadafka ugu muhiimsan intaas waaye meel ka muhiimsan oo joogi lahayn waqtigan xaadirka hadda la joogo oo furimaha ka muhiimsanna aniga ima muuqato intii socdeen dagaalka kula jira khawaarijta shaab waxay howlgalo gacmaha ku soo qaadaan ciidamada ilaa hadda dhagartooda wax ma ka baran dhagartooda wax weyn aan ka baranay sababta guulaha maaragta noo keentay oo cadowga deegaana inta la eg looga xoreeyay muddada kooban waa in cadowga dhagartiisa aad aan u fahanay waa in cadowga dhagartiisa maaragta ciidamada qalabka sida si sax ah u fahmeen laakiin dhagar cadow ma dhamaanayso nimankan khawaarijta ah waa niman fuliyaala waa niman aan maaragta dhagar wax aan ahayn ku shaqaysanin mana u babac dhigi karaan ciidamada geesiyaasha ee qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed oo qoryaha qaatay uma babac dhigi karaan wax aanan dhagar iyo miino meel la dhigo iyo gaari qarax lagu soo buuxiyo iyo aan ahayn ay ku shaqaysanayaan ma jirto intaasna ilaahay fadigiisa wax badan ayaa laga bartay dhagartoodina ma dhamaan doontee waxa asalka ah waxay tahay in inta laga dhameystirayo oo ilaa ay ka gaaraan meel ay wax ka dhagraan inay ka waayaan iyo cid ay maaragta wax dhagarta in la waayo in dagaalka lagu jiro dagaalkan lagu jiro waxa rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan fahansiiyo wuxuu la mid yahay dagaalkii xorriyatul maaragta waqtiga xorriyada la doonay oo dadka Soomaaliyeed ay xorriyad doon ahaayeen ayay la mid tahay waayo cadowgan wuxuu gumeystay shacabka Soomaaliyeed wuxuu gumeystay diinkoodii wuxuu gumeystay wax walba oo qayim u ah ummadda Soomaaliyeed ayuu gumeystay tusaale ahaan deegaanaan hadda joognaa oo magaaladan Xardheere la yiraahdo hadda maalmahan ciidamadu ay ku sugnaayeen oo ay cadowga dhulkan laga nadiifinayay oo halkan ilaa iyo caad laga nadiifinayay oo dhinacadan laga nadiifinayay dadka inay hadlaan ay bilaabeen ma aaminaysaa waxyaabaha qaarkood kuma habboona xataa in idaacadaha laga sheego ay dadku ku sameeyeen dad ayaa iyagoo nool raggii ayaa iyagoo nool oo jooga guryahooda jooga ayaa xaasaskooda lagala baxay wax oo yaani gumeysigii xataa waqtiyadii gumeysiga xataa inaynan dhicin aan u maleynayo waa meeshani
nimanka kani waa niman akhasunaasa dhagar badan khiyaano badan dadka inay gumeeyaanna aad uga shaqeeya sidaas daraaddeeda wax badan ayaan ka fahanay wax badan ayaa xumaantooda ummadda Soomaaliyeed dhigaha kaliya laga maqli jiray baraagti u soo aragnay waxaan aaminsanahay inaan ka guuleysan doono oo haddii Ilaahay yiraahdo dhagartoodana ay maaragtay nooga dhamaan doonto hadda waxaa xoreynay dhawaan degmada ugu dambeeyay gobolka Mudug cadawga heystay khawaarijta ilaa hadda khasaarinta ay gaarsiin khawaarijta muddadii dagaalka lagu jiray horta khasaar badan ayaa gaaray oo isugu jira naf iyo maal iyo in dhaqaalahoodii maaragtay hoos u dhacay in maaragtay nimankii maleeshiyaadka ahaa ay qaldi jireen oo khawaarijta ahaa ay intoodii badan oo wixii deegaanada aan ku jiray ay dhinteen in badan ay naafooween oo maanta ay meel geeyaan ay la yihiin intoodii badan ay dhameystireen furimaha hadda daraa dagaalkii dhacay boqolkiiba 90 wixii dhaawacmay way dileen wixii socon karay ma ahane inta kale way dileen ayaga leenahay oo dhaawacooda ka tagan maayaan dhibaato badan ay gaartay dhinaca hadda intuu hadda bilowday dagaalkan wuxuu cagacageynayaa oo maalmihii toddobaadkii la soo dhaafay socday wuxuu cagacageynayaa 300 ku dhawaad oo khawaarij inay ku dhimatay maalin walban waa la soo sheegaa shalay ugu dambeysay deegaankan wataariq la yiraahdo waxa uga baaba'day almost 20 uga dhimatay oo meedadkoodii iyo dhaawacyadooda iyagoo la cararaay ay jawlo xagga u dhaafeen marka waxa dareemaysaa in maalinta ka dambayso nusqaan ku socoto maalinta ka dambayso moraal jab uu ku socdo tabartiina ay ka dhamaatay oo wixii qarax iyo ay hayeen ay maaragtay ay isleeyihiin gobolo kale idinka jiraan ay doonanayaan marka khasaaro xoog leh ayaa gaaray ummadda Soomaaliyeedna guul badan ayaa u soo hooyatay meeshaas marka waxaanan ka marneen dagaal marka lagu jiro oo lala dirirayo niman sidaa u dhagar badan niman 10 sano maaragtay 10 sano iyo ka badan dalkan ummadda Soomaaliyeed dhiigooda jaqayay oo qarax iyo maaragtay dhagar iyo problem ka shaqeynayay oo dad dhalinyarada Soomaaliyeed khaldi jiray marka la dagaalamayo ma sahlana waa in dhiig loo bixiyo waa in loo bixiyo maal loo bixiyo sidaa daraadeeda waxa la wixii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ciidamada qalabka sida ku gaaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaadadooda ka aqbalo intii dhimatay intii dhaawacantay Ilaahay subhanahu wa ta'ala maaragtaa ha u boogdaydo waxaan aaminsanahay qof walba oo Soomaaliyeed oo dagaalkan khawaarijta lagu jiro wax ku gaaraan adduun iyo aakhiraba uu nasiibsaday dagaalkan horta sidiisaba waa dagaal shacabka Soomaaliyeed dalbadeen oo ay maaragtaa iyagu ay u istaageen iyagoo qarankooda ay maaragtaa garab istaagayaan madaxweynahooda garab istaagayo xukuumadooda garab istaagayo ciidamadooda qalabka sida garab istaagayo maamul goboleedyadooda garab istaagayo kacdoon shacab waaye dagaalkan shacabka dalbaday asagaana maaragtaa badankiisa hogaamiya markaad u eegto dhinaca baraaruga markaad u eegto shacabka Soomaaliyeed in muddo ayay madaxa ciida dhulka ku hayeen laakiin hadda waxaad moodaa in baraarugii aad u ballaartay oo ay aad u maaragtaa ay u shaqeynayaan aad maaragtaa qoryaha u soo qaadanayaan reer galmudugna hadee awalba reer galmudug dagaal lama fari jirin laakiin hadda waxaad moodaa inay aad uga soo baraarugeen oo khawaarijta iska dhicinteeda ay aad u shaqeynayaan هذا mudan هذا محسن